dhalinyarada waxaan barnaamijka maanta marti igu ah abwaan asoo abwaan aad iyo aad u daayar oo abwaan Soomaaliyeed waa abwaan Cabdishakuur Maxamed Ciise waa sidaan hore ugu sheegay waa abwaan aad iyo aad u daayar Cabdishakuur kusoo dhaw barnaamijka adiga oo adigoo isfaafahinaysa waliba magacaaga ugu bilaabay barnaamijka waan dhawahay waxaan ku dhawahay TV-ga Tusmo TV magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ciise sida hore u sheegtay waxaan ahay arday wax ku bartay magaalada Muqdisho inta badanna uriyad suugaan dhan walba isku jirta jecelna in uu soo laabto fankii Soomaaliya ee qiimaha badnaa haddii fursad la ii siin karo in waxaan oran lahaaba waxyaalo badan baan samayn lahayn oo ishaga dhalinyarta oo lagu wacyigelinayo waxaa noo muuqata haddii aan ahay abwaaninta da'da yar hadda waa la helayaa abwaanin badan oo da'da yar haddana ma helaan soo bandhigidooda TV inay ka qayb qaataan boqolkiiba boqol marka waxaan dhihi lahaa inay cusumad u sameeyaan intii aan karin inay soo bandhigaan soo muujiyaan inay xitaa bandhigyo caalami la sameeyo oo lagu mataqaana lagu dardargelinayo inay soo suugantoodu banaanka soo baxdo sidii waayihii hore oo kale abwaani waxaan jeclaa inaan su'aalaheena u guda galno su'aalihii barnaamijka ugu talagalnay iyo weliba qodobka maanta aan micnaha barnaamijka ku faaqideynayno dhegeystayaasheena ku dhacno qodobka maanta aan barnaamijka ku faaqidi doono insha Allah wuxuu noqonayaa sidee fanka ugu qayb qaadan karaa soo nooleynta dhaqankiisu banaa ee soo jireenka ah ee Soomaalida oo haatan u muuqda mid meeshii ka sii baxayo barnaamijka su'aalihiisa ayaan jeclahay inaan u guda galno su'aasha ugu horeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa weeyaan waxaa noo sheegtay inaad tahay abwaan aad iyo aad u daayar abwaan Soomaaliyeed uriya suugaanta qaybaheeda kala duwan maxaa kugu dhaliyay adiga inaad noqotid abwaan aadna curisid heesaha ama fanka mise nooc kastoo suugaanta u qaybsanto okay aniga aad u yar baan horta jeclaa inaan dhageysto gabayada suugaanta qaybaheeda kala duwan dadna waxaa i suurta gashay in aan ilaahay qofku wuxuu hubbi u leeyahay boqolkiiba 90 wuu helaa haddana aniga waxba ii raacsanayd haddana markaas waxaan ahaa qof markuu wax jecel yahay wixii waa u bilaaban ma la dhihi karaa haddana waagaas waa i bilownaayeen anoo aad u daayar bay haddana aan jeclahay suugaanta haddana way ii bilownayd suugaanta oo isku aadin kara markaa waa samayn kara ma jira marka dad markii xilliga aad suugaanta bilaabaysan ninbo markuu meel wax ka soo galayo nin ayuu ku daydaa oo yiraahdaa ruuxaas ayaa ugu dhadiyay oo aan dhageystay gabihiisa hadda leedahay in hebel ayaan ugu daydaa suugaanta waa la oran karaa abwaanin aad iyo aad u qiimo badan waan jeclahay oo haddana aan waqti inoo siin inaan is aragno waa jireen kuwana ay dhinteen kuwana ay nool yihiin hadda marka waxaa la oran karaa dadkaas mataqaanaa gabayada iyo suugaanta heerka ka joogeen inaan ka joogo baan ku hamiyi jiray maantana waan ku sii hamiyaa insha Allah